dalko haliyaygaan doorano dadaal baad noo gashay dameerjo ku soo dhawow dameerjo ku soo dhawow abageelow ku soo dhawow dameerjo ku soo dhawow hogaamiyihii dalko haliyaygaan doorano dadaal baad noo gashay dameerjo ku soo dhawow dameerjo ku soo dhawow abageelow ku soo dhawow dameerjo ku soo dhawow dalka horow marsho aabo nabada dahabkan helay aabo dunida nagu aamintay dameerjo ku soo dhawow dameerjo ku soo dhawow abageelow ku soo dhawow dameerjo ku soo dhawow dalka horow marsho aabo nabada dahabkan helay aabo dunida nagu aamintay dameerjo ku soo dhawow dameerjo ku soo dhawow abageelow ku soo dhawow dameerjo ku soo dhawow Bonsoir, monsieur le président. nabad laga helaa hurdoosan lagu gamaa halkaa nabad laga helaa hurdoosan
goosan lagu gamaa gesigii ku hiiliyo halyey baa loo xishaa gesigii ku hiiliyo halyey baa loo xishaa abihii noo hagarbaxee horow marka noo simo yiga adiga ku qoran yiga adiga ku qoran yiga adiga ku qoran yiga adiga ku qoran abaalka waad heliye ogaashaha nabadda afriikii ma haysato ninkii hadlayaa maxay iska hadle ninkii hadlayaa maxay iska hadle talada hadaa weligaa baxay talada hadaa weligaa baxay abaalka waad heliye dameerjoog deegaanada kala duwan shabeelley nagaad duuda dameerjoog caad cantar baaxuur looy cadda iyo cali cunay ku soo dhaweynayaan caleemo qoyan iyo qalbi furan mudane madaxweyne reer dameerjoog waxay ugu horreyn kaga mahad celinayaan is araggan cusub inay qayb ka noqdaan waana fursad adigu ugu deeqday bulshada dalka oo dhan hoggaan aragti fog leh ayaa ku dhiirada dhagaysiga bulshadiisa iyo dhammaystirka dhismaha qaranka mudane madaxweyne adiga ayaa u badheedhay la kulanka bulshada si aad gun iyo baar uga bogotid baahida ay qabaan ilaahay mahaddii dameerjoog waxaa ka ifaya mustaqbal dhaqaale oo ku dhisan sab maalgashiga kaabayaasha dhaqaale ee muuqda waxa ay marag u yihiin hiigsiga xornimada dhaqaale ee aad ugu jirtid hadalka hadh iyo habeen mudane madaxweyne xornimo dhaqaale inaan tiigsano shalay tilmaam ayay ku ahayd maantase waa tacab muuqda maragna waxaa ugu filan Djibouti Dameerjoog Industrial Park isaragga cusub madasha madaxweyne iyo muwaadiniintiisa waxaan ku daafuri doonaa marka hore aayadaha quraanka kariimka waxa xigi doona astaanta qaranka kadib madaxweynaha si rasmi hadalka u furi doona kadib waxaan gali doonaa wada hadalka bulshada iyo madaxweynaha waxaan jecelnahay qof walba oo hadalka siino waqti kooban inuu ka hadlo baahida gobolka baahida degmada Dameerjoog aan ku furno ugu horeyn aayadaha quraanka kariimka Sheekh Faisal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وحي هايين آياته قرآن كريم مدن مدحوينه أنو سرك عنو أستانتا قرنك جمهورية جيبوتي ما شاء الله أستانتي قرن كجمهورية جيبوتي أي تاسيهايد وحنا مركز نقول دونا برنامج كيني لكن وحنا شعل هينا نحسوسي رد ميرجوك قفل بقون هذا الكاسينو وقت كومن هكهدلو باهدا قبل كا إيو وحيابها يتمنى لكن مركز وحنا سينا يا هذا الكافوري دونا رسمية مدحويني إسماعيل عمر جيلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سعودال كيني أولاً كمر كلها ساوي ندوينه سا وكورجلين دباتوين كيسا إسويدين إني أندود كفريني مال والبا gobolkii labaad ayaan joognaa waa ay muuqataan dadkii dhulkani deganaa waa ka guuray oo ku soo noqday maantana waan arkayaa inay dani ku soo celisay inuu haasawahan uu soo celiyay ma garanayo laakiin lama masixi kara dee waa dadkii dhulkan weeyaan xaqna way u leeyihiin inay doodaan xaqna way u leeyihiin inay sheegtaan waxa ay qabaan xaqna way u leeyihiin in ay taladooda ku biirsadaan talada waddanka waxaan joognaa waxa weeyaan degmo alla barakeeyey waxaan joognaa degmo ayaan badan leh waxaan joognaa degmo dhibaatada guumaysigu ay awalkiiba aad ugu dhacday waxaan joognaa degmo wax soo saarka waddanka hormoodu ah waxaan joognaa degmo mustaqbal waacida leh oo lagu talagali karo oo xididada dhaqaale halkani haddee toole madaxiisiina waan aragnaa dadkii u dhashayna dadaalka weyn ay ku jiraan u noo muuqda marka haddaad isbadisaan iyo haddaad soo koobtaanba hadalku waa idin furan yahay aan bilowno in Cumar Faarax Dabar baa ugu horreyn doono degmada Nagaad aan soo dhaweeyay السلام عليكم ورحمة الله فارح دبر دكروي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة مدحوينها أي وقت قلص على ما
سوى ناس سوى قلب الفرن يعني عمق كل سوى نواله waxaa ka yartaa taabanayaa waxqabadkaagii iyo waxa ku hadhan waxqabadkaagii markaan ka soo bilaabo heleley oo madoobeyn waxaa loo sameeyey soleer dee abeesadii culaysa iyo day maxaan ku dhahan garaaga iyo qaliilay labadiiba caawa ka bogsaday maanta xagga iftiin baa ka yimid waan soo dhaafo degmadii nagaaleed waadna xasuuso waxaad noo samaysay lagaarkii shamada feer awal waxaan iska ahaa caaladiiqa tuulayaro caaladiiqan iska ahaa yaa tuulayaro caaladiiqa haye ayaan iska ahaa haa maantana waxaa laga yaqaanaa adduunyada intaababa indeeqdo intaa kadib waan soo socotoo waxaan nimidnay kaabadii baad noo samaysay duudac dumarku marka way dul magaalo daadkii oo socday daawadaan daadkii oo socdo iyo daawada iyay daawadaan awalada way ka baqayaan halkaana ducaa kaaga dhacday waan soo dhaafnay oo warshadii caanaha iyaad noo samaysay waan ku dacar baxnayba waan ku dacar baxnay waan soo dhaafnay oo boorkii xoolaha iyaad noo samaysay weli waa qabiyo weli waa qabiyo oo qabiyo oo garanaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxa dhiman iyo waxa gacmaha lagu hayo iyo waxaan higsanayno saddexdaa wax weeye wixii aan helnay aan dhammaynay aan ka shaqaynay waad sheegtay waxaan higsanaynana waad sheegtay waxa aan dhaliilaynaba noo hadh xasan cawaale axmed oo ka socda damiir joog ayaan markan u yeedhi doonaa madaxweyne mudane madaxweyne iyo wafdiga ballaaran ee hogaaminaysid waan salaama horta salaanta sharciga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxma anoo ku hadlayaa afkii dhalinta damiir joog iyo tuulooyinka hoos yimaada waxaan xaggan horta mahad ballaaran uga celinaynaa madaxweynaheenna oo noo keenay barnaamij si gaara dhalinta u taabanaya dhallinyarada barnaamijkaasoo nagu soo dhiibtay hay'adda istaageersiga qaran ee jug barnaamijkaasoo afka qaala lagu dhaha probeja barnaamijka shaqa abuurka ee dhallinyarada oo si gaaro barnaamijkaasoo si gaara dhallinyarada uun u quseeyey sababtoo ah waxayna shuruudaha ka mid ah laysku sajilay waxaa ka mid ahaa inuu qofku ahaado u dhasho deegaankan oo uu ahaado 16 jir ilaa 29 jir arrintaasna waa arrin dhallinyarada uun qusaysa saa la ajligeed waxaan si gaara mahadnaq ballaaran oo dhallinyaradu ku soo jeedinayeen deegaankan aan kaaga siday mudane madaxweyne barnaamijka mudane madaxweyne haddaan yar guda galo wuxuu sitay aqoon kororsi uu dhalinta u fidinayay iyo ururada deegaankan oo dhan uu aqoon kororsi siinayay aqoon kororsigaa yorna tusiyey run ahaantii inaan dowladda uun wax laga sugin oo annaguba gamciheenna iyo fikirkeenna aan annagu isku qaybtiri karno baahideenna oo shaqa abuur la iman karno barnaamijkaas wuxuu noo sahlay amba wuxuu noo maalgeliyey 25 barnaamij amba meheradood oo deegaankan oo dhan duudiya damiir joog inta haddaan kaga yimaado mudane madaxweyne barnaamijkaas horta intaan barnaamijka dhaafin waxaan codsan lahayn 2 sano noo socday barnaamijkaas waxaan jeclaan lahayn barnaamijka mudane madaxweyne inaad noo soo celisid mar labaad deegaanada kale uu ka socdaa inaa xakanna mar labaad noogu soo celisid sidaa intaa in ka badan uga faa'iidaysano waad hororsateen miya warna waan ka faa'iidaysanay haddana lagama dharga bilaadka baahidiisu ma dhamaato inaan noogu soo celisid mar labaad ma jeclaan sax dadaalkana in la dhameeyo ma dadaalkuna waa inuu sii bato baahiduna kol hadday joogto dadaal unbaa ka hortagi kara waatan dee gabadhii iyadaa waday soo ma ya way maqlaysaa de annagu waan ka soo baxnay hawshayadii hala noo biirsho waan kari weynay unbaa ka darnayd maha
مرحبا يا رمضان مدحوين waxaan ku day baahida kale ay dhalintu ay tabanayaan insha Allah way baahi kale jirto isdul taagi oo liiseega liiseega dhalinteenu kool imprimerki waxay sanay ilaa fadligi koolashkii inkastoo nugu yar yahay oo waxyaabo badan ay ka yardhiman yihiin deersi loo sameeyo dhalintu hadday permanence leeyihiin amba meelaha ay ku harsadaan ma jiro waa saddex kalaas uno oo ardeen clotirio lahayn marka waxaan codsan lahayn taan in muuqaalkii college ahaan loo dhameystiro oo say dhalintu uga helaan waxa loo liseena ku dar dhade liseena ku dar liseena oo baahanay carruurtu inaynan barmarsiyo ka dhiganay meelo kale intay tagaan in iskoolkii baan ku maqnaa halkana ku dhamaysto marxaba macna ilaa intuu ismaamuli karaya isagu أنا هذا الكوكودير أنا مقدم كوكودير بيان كودير مدن مدحويني إن عقون كورس بقى حكن إلى في اللي يسأل نوفرتي محاد فرسمة جعنتها سنتر فورماسيون بروفيشنال كي واحد نوفرتي سنتر فورماسيون بروفيشنال كإلى في اللي واحد كيف يدي سنة تخصصه كلا جدي سن لكن التخصص هذا شهادة إنه قصة الرسالة كقاضنا وأد إلكتريسيان أد سودر waxaanu baahnaa lahayn boorka mashaariic badan baa imka noo soo socota sida boorkii iyo meherada kale waaweyn baa noo furmay waxaan jeclaan lahayn saan uga faa'iideysano amba dhalinta damar joog barnaamijyada iyo boorarka uga shaqeystaan farsamo gamceed oo kale oo takhasuskeedu ka sareysa oo takhasuso kala gedisan la gestion logistique transport waxa ay dhalinta ku shaqeystaan ma u baahnaa lahayn inta mudan madaxweyne ku dhameeyay han weynidu way fiican tahay ما تسنت عليكم السلام مدحوينها يقا قاليقا هورتا waa salaamaya xukuumadayada jadiidka waa salaamaya dhammaan sheefturiyada oo dhan waa salaamaya caafimaad iyo cimri dherer nabadgelyo iyo ilaahay ni weydiiyo aamin madaxweyne gumaysigu halkuna gaarsiye anigu waan ogaa waan joogay maanta يا مالنتي فراقه وكلا دحيس نكي قرن باقرن أقل نوجا متجي إسكال نوجا متجي دكتورنا نوجا متجي ما أنت وحن لنا هاي كن إسكال بان لنا كن دكتور بان لنا دقمة دمير جوج بان كنا هاي ودقمة الصب واصلات وشيء أكتر أنا قلت دمير جوج ذهب بانو باش وكا دمير جوج ذهب أيال أنا قلت مبحي يا دكادي يا دلكادي أيا أنتي كم مغني ويكسر نقطة وادركت أديكوا أنا يقول واحد حكومة دمير جوج واحد شيخ فارح غير كنت ضاي إلا السعودية الدولة دكانتي إلا تجيبانا ما أنت الدولة تيدا يا إسماعيل أون هرجوجو واحد كدولة يا إنا قريه لا يدسو مرحبا قريه لا يدسو أبشر ما مغلى ما توالي سوجون أبشر بنا إسكول والله هاي أدبر إسكول في عنو له ما هذه هجهدو دولة مدحوينها ده أنت يلا ماشي نوشوف معلمين وان له وحسام عيال كبار كو إسكول كردكتو بوجي لسوسية إلكي بقوي تبايشي بقاطي ilmi kolka halku tacliinka gaadhaya madaxweyne waxaan keenay buugi oo qoyay tirigteerkii baan u keenay wuu mahadsan yahay wuu iga qaado ku kaluusiye waxa weey talabaad dhakhtar waan leeyahay dhakhtar fiican baan leeyahay waxaan leeyahay rag fiican waxaan leeyahay afar nin oo arjaasa oo iga daalin habeen iyo dharaar shaqays mudane madaxweyne تكلي اللوات وحن لهاي جاندار فوجيجن أو فرديا شيخ فرح أفر يلا بدك سعودات ويلا شقي دوا حقينا متى هاي ومدح وينها يا حكومة ديسة هي هلي لهذا ماي نبض ما هلي لها مايا إني كيسي يده وحكلا اللوات on لهاي الشركة بحولة dhuxusha xawaashka ayaan ka sameeyaa boqol dumar qoran tur oo ka shaqeeya iminkana halkan aan keenay shirkadaana inaad meel ii siisiin oo ii furtaan baan jecela hadalka badin maayo aqal bay igu daran aqal hala ii dhiso hal si ugu dhaqso badan si ugu degdeg badan waxa la ninka joonaya ama hadal ku dadajiya ama limqadu dadajiya waa dadajinaya
رمبا شيء تكلم لبعض وحن لها أيام كيغا لبا شيف طريق بان لها يا وحويان شيخو وحن لها هاي نجيب شكيب لبا وان لها آد بايلا شقية ويقرب جوغان وانو مهد نقيا مرحبا وكاي والسلام عليكم عليكم السلام لابا وحونا دسلحين بات تريمك ورشد بان ليه هنا واتري عدعيدنا والرب يكونوا يقود أبد أي وي وكا أي وكا dhuxusha dawaa iibisaa soo ma geedihii la shidaaye kolkaa waxaa sidaa kuula hadaa shirkadan uhan leehay maaha waa haayad haayaduna bari waa iga guuride maxay u guuri haddii aan ka shaqayn waayo oon macnaha garan waayo dhismaha garan waayo dee shirkadda waa la iska laabaa waxaan ku weydiiyey reer xanle waxay sameeyaan dhuxul dhuxultana geedkan bay ka sameynayaan aad nacaysiin maxaad de inagu uga samayn weydeen ood u keeni weydeen suuqii riyaad ee jabuuti oo yani loo geedahan kalena loo nasin lahaa waxaan ku idhi ma reer xanleen qaar inii keennaa maya nin kastaba meeshiisa allah ku cabiro horta annaku waxaan doon horta anigu waxaan doonayaa nin kastaba aqoontiisa inuu meel la fadhiyo maaha waa la iskugu faano in la iskugu faano anigu waxaabaan sameeya aniguna waxaabaan sameeya dee shirkaddu hadday xumaato waan iska laabi laakiin waan ku meel gaadhi deen intaad aqalada ii dhisayso waan ku meel gaadhi deen waaye barnaamij baan leenahay guryo dhisida waan dhisaynaa dhulkiisa la nooma eegin dhulkiisa nooma xisamayn waan dhisaynaa haddii alla yidhaaho qaybtaada waad ku leedahay qaybtaada dhallinyaradan usoo noqonaya dadaalkiina aad baan anigu ugu bogay kowdhe hawshii inaad dadka hortii dhammaysateenna waan u bogay laba dheh waxa aan ka helayna raqbadda ama hanka weyn ee odhanaya waan dhammaynay ha lanoo kordhiyo taasna waan ka helay waana kordhinaynaa maxaa yeelay ardaygu kolka uu iskuulka ka baxo iyo intuu shaqo helayo wakhti baa u dhexaysa wakhtigaa hadduu ku dhammaysto in uu aqoontiisa kordhiyo ayaankii ama nasiibkii uu ku heli lahaa shaqo iyo laba ama isaguba shaqo uu abuuran lahaa ayaa u fududaanaysa waa boorkaasi ku xadiid laga soo dejiyey ee ku xadiid laga diraba uu noqonaya ku saans laga keenay iyo lagu kaydiyey iyo ku laga diraba uu noqonaya ku xoolaha laga rarana uu noqonaya ku xoolaha nool laga rarana uu noqon doona yacni mashruuc aad u weyn weeyaan madaxiisa imika ayuu bilaabmayaa waxaanu u baahan doonaa dad fara badan ha iska celinina dadka kale kolkuu ni yimaadee walaalihiin ay shaqadala ha odhanina annaga unbaa arsaaqadda leh ka daaya sida laakiin firfircoonida iyo shaqo jacaylka iyo wax soo saarka halkan aan ku arkayo aad baan ugu bogay kolka dhallinyaradu waddadaa ka sii wadaan xaajiyaddana waxaan leenahay waan dhisaynaa aqalkii dhuxushana dadka sida loo sameeyo bara taa halkaa hortiinna taalla ilaan dheemaalkii marka laga sameeyo daqiiq ee xoolaha la siiyo abaar ma arkaysaan abaar dambe oo arkaysaani ma jiro
wixii hadhay na inaad dhuxul laga dhigo waa faa'iido labaad wey annicina geedka inuu fido un diidaba ah soo maha hadduu fido waa inta uu dhulkii oo dhan naga qabsado hadhowna faa'iidadiisa markaad aragtaan inaad tidhaahdaan war hanoo daaya hanoo ballaadhe isaga oo kolka dheemaalka la gooyo ee la daqiijiyo ee xoolaha la siiyo geedku ma tarmayo ma biirayo maxaa yeelay xooluhu hadday cunaan waxba ma yeelayo yacni waxa ay yacni dhigaan maxaa la idhahdaa digo farsamadan iminka aad adigu xawaashka aad ka dhigayso dhuxusha waa tu aan garan laanahay annagu hebel waan kula eegaynaa welcome welcome dhehaytaba cabdirashiid ismaaciil giire oo ka tirsan degmada dameerjoog mudan madaxweyne horta waxaan u qushuucay waxaa tiri reer jabuuti ka dherga hadalka waad iga arkay dameerjoog maanta hadalka looga dhergayo waana madal furan cabdirashiid aan u yeedho dameerjoog السلام عليكم. calaykum salaam waxaan salaamaynaa madaxweynaha ku soo dhowow degmadaadii iyaan ku leenahay waxaan kugu salaamaynaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barakaatu waxaan ka soconaa dhalinyarta duuda shabeelley iyo nagaadh kolka madaxweynaha waxaan sheegaynaa ma aasayna wixii muuqdee waan sheegaynaa wixii uu xaajigu sheegana insha allah maan wixii kale ayaana yar dulmar insha allah dabeedna baahidu ma dhamaatay wixii baahida waan ka yar hadlay laba kelmadood marxaba madaxweynaha waxaan ku mahadnaqaynaa dikadda nadiifta uu noo sameeyey dabeedna noga dhigay tariiga midda labaad shabeelley iyo duuda ma lahayn dhakhtar waxaa jira dad danyara oo maaragtay ay markay amba islaan umulayso amba haysanba tagsigii iyo wixii lagu kuraysanayay dhakhtarre ayuu nooga sameeyey maca umulisooyinkii nanoo dhigay taasina ilaahay baan ku mahadnaqaynaa wixii kalena de insha allah waa lanoogu daray midda kale ciyaal iskoolka markay halkan nooga helaan waaga hore dabarjoog aba ciyaaladeeda hore ima jirne iskoolkii barmeerka duuda baa lanooga dhisay nagaadh shabeelley intaba iskoolkii waa lanooga sameeyey seesta ayaan ka hadlaynaa oo lasoo lugeyn jiray baabuurro ayaanu noogu qabtay soo qaada kowda qadada xaafadda intay ka qaadayaan dibnu u yimaada iskoolka taana waa alxamdulilah iyo dowladda ugu mahadnaqaynaa kolkaa baahida ayaan u gudbaynaa insha allah wuxuu cumar qaadi sheega maahayna waxa kale insha allah waxaan doonaynaa xagga jaanayska inaan ururo sidayseeyo haddana nooga dhiso shabeelley nagaadh iyo duuda midda kale dabeerjoog ilaa maa baaxuur iyo cantarna aqal yar baa jira way ku yar tahay inaad taana nanoo ballaadhay insha allah intay isku jiraan waa kuwa isma dameerjoog iyo baaxuur intay isku jiraan may waa dhow yihiin waa kiro may kuwa waa aqalka un way isku dhow yihiin nacam in loo yar ballaadhay kubadda markaa ku daawanayno kubadda marka la daawanayo ma qaado waa maqsi yar taa waa kordhis yar ma doonaynaa isaga midda kale ee nuugu weyn ee xagga duudi iyo nagaadh aan ka hadlayno waa tariiq mudane madaxweyne ciyaalkayga annaka waxaan kusoo dhiganay madow faanuus baan ku shidanaa weli duuda iyo nagaadh middaa waxaad noo yeeshid ba hadday soo leertay haddaa kooraanba xabaddaa intaa aad baan uga cabanaynaa tariiq ahaanta adiga ilaahay baan kaa sugaynaa xabaddaa tariiga aad baan hooyo iyo aabbo iyo inanba faanuus madooba ciyaal ku dhigtaan kolka waxba ma dhigtaanba faanuuska anigu kusoo dhigtay aabba kusoo dhigtay ciyaalkaygina ayaa ku dhiganay xabaddaa waxaan doonanaa insha allah inaa xabaddaa wax nooga qabatiin duudi iyo nagaadh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalka waa ka baxay waxa problemku yahay kutubtiina waxaa ku qoran rural iyo urban soo maaha reer magaal iyo reer miyi ya kolka dee meel dadku uu riyo yar leeyahay oo meel yar iska degan yahay uga qoladana reer ede dee waxa ugu qoran ruraalna kooraan ma doonto kolkaa waa inaa laga bedelo magacaho waa magaalo la yidhaah maaha haddii kale cadceedda ha ka faa'iidaystaan war usoo cadceedee dhulka spoorkii hamaad ka hadasha ya qolaya baad nagu tiri annaga xagga spoortka annaga ka haqabtirna bayna yidhaaheen
ميان كعيادة قف كستا يقول هذا dhanka sportka waxaan sameynay waxaa la yiraahdo social responsibility oo shirkaddan Djibouti Dameerjoog Industrial Park inay dhankii kubadda cagta ilaa 50 caruura ay qalabkii u dhanaysiisay saxba maayogiya kabihi bas baahidii inuu noo soo tabiyo waxaan ku qaban karnaa ka qabanayna lama suuleeno hay'ad kaliya ay de soo tabinaya adiga ya c'est toi le patron Monsieur le Président aad baan ku salaamayaa halkan adaa ka patron cid kale ka patron ma jirto aad iyo aad baan idin salaamayaa xukuumadda aad baan u salaamayaa ilaa ciidda la galayo baahidu ma dhammaato nabi maxamed baa yidhi waxa buuxisoon ciidun baa buuxisa sallallahu alayhi wasallam kuma dheeraanayo isboortka hadday noqoto aad iyo aad horta lama odhanayo maxay ahayd waxba ma jiraan dhalinta isbaan waxaan ku jiraa guddiga dhalinyarta ee heerka saddexaad baan ku jiraa waa kan Yunus Ali Geedi isaga aad baan u salaamayaa aad iyo aad wuxuu noo shubay lacag gaadhaysa 1 malyan oo weydiisanay inaan ku kharash garayno ciyaalka heerka saddexaad ciyaaraya baahidu way yar tahay halkan aqalka aan iskugu tagno maxay ahayd CDC-ga centre communautaire-ka aad buu u yaryahay Monsieur le Président waa aqal kiraa waliba aqalkaasi waa kiro والله واكرو وحويان إن هذا نودي ستيد ما بان أقل كان نجاه قبترتين عبد الكريم أو تران كيد مرجوك مدن مدح حويني أفرتنجورة دي حسبك أنكو سمين واحد كل دقني هريل أنا أقوم قعدنا إليها ونحرستي أبيه قرنك حسن جولد أبتدام أنكو سميني قران كان واحد أقوم قعدنا إسماعيل عمر جيلان وقوم قعدنا بقي عيسى أذوق السجين مدن مدحويني إن النوع محي هذا نود دايع ترتي إن شاء الله فوتبول كا يا كيف فوتبول كا واقع كيني فوتبول كي وينوي أنا واقع كا كويا مدن مدحوين ما قاعد ستادي أبشر أجد بني سلام يا قلبي قاعد نرجع على هاي مدن مدحوين كلمة يربان وراني ركونتر شيتوانيا يجي دوا وحنا بناديست وانها قالوا نو جوابي قالوا يا نو جوابي ما أنت أنا ونو جوابي هذانا أيوة وحبيبي شيخيرو هالحلالة مالن أيام كوكولنا محي هذا جيبوتي وجوريشة جيبوتي وجوريشة نمن بسؤال ويدي وحنو صار نمن كسياسيين تحناقصن سياسيين حناقصن ما هو صار مركب واحد ويدين جيبوتي ويدين واحد جيبوتي الحكاية جوريشة waxay tiri maxay ahayd sahan barwaaqo ayaa la soo arko sahan ka waan u guuraya markaa way yiraahdeen siyaasiyiintii xanaaqsanaa ratiga aad ku guuraysid amba awrka aad ku guuraysid waxa uu eegyahay rati daalay buu u eegyahay markaa way tiri indhihiina waad u haysatiino indhihiina maxay ahayd indhihiina sawiraya inuu ratigaygu daalay hadda un buu rarka si fiican igu qaadaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم inaad wajigayga garnis baa malayna si fiican dribor baan joogaa contribution brigade ana baan ahay tariiqa markaad maraysid gabadhaas kariyada dresseta wada aragtaan malaya markasta salaam kuula taagan hawshan wada waan joojiyaa waan ku soo caymadaa waxaasi waa kala gacayl iyo jacaylan ka qabo xalay 9kii baan imiday umul baan ahay brevegi ayaan la hadlay oo ka yiri maanta brisanka ay mana leeyahay chefkayga ka fasaqatay waan u buraanburaya markaa monsieur le président wallahi waan ku jecelahay dar ilaahay baan ku jecelahay wiil baan ku curtay 2019kii bishii lixaad ismaaciil baan u bixiyay الله يبارك فيك marka dadweynahaygan la hadlayaa ismaaciil cumar waa nin dhabar leh waa nin dulqaad badan waa nin daacada waxa kaliya hata igu daran halka keenan waa kala gacaylkaaga الله يبارك hanti ma haysto contribution brigadier ahay militaire sena oo soo maray laqtade operatrice baan ahaa district
dilaa qayaad baan la soo shaqeeyey marka hanti aad muftaaxi siisid yaa igu daran mid kalena waan raacsanayaa jarnaa sakariye ayaan horta iyo madaxda fadhiyaan salaamayaa jarnaa sakariye odayga baad naga qaaday waddi baa naga geysay 2 sannadood buu maqan yahay abidid halkaa u taagnaane dumar baan nahay celebration baahi baan leenahay odayaha gaboobay halkaa geeya ee 9 ka dhalay sheenka carooska noo keena intaan hadlayna waa inu jarnaa sakariya galoon igu deeqa odagayga lacagta igu biiriya inta kalena presidentka ku leeyahay doon president ayga tagin ayga talaabsan waa ku sugaya magacayguna inta Ismaan tayo aad baan ayaa kuugu mahadnaqayaa waan kuu soo dhawaynayaa oo aan aad ugu khushuucay maxaan dhaha geesinimadaada adiga ma hoogayo waddankaada adigu ka dhalatay wixiise sheeganaya ay ka go'an tahay inuu mas-uuliyaddiisa qaato meeshay doonay ha noqoto waxay doonay ha noqoto dalkana daacad u ah aad baan ku hambalyeynayaa wixii aad tirina marxabaan idhi baa khalaas xaajiganna isaga waad u maqlayaayo isaga kuu soo celin odaygaaga waa tahay mudane madaxweyne waxaan mara ka nahay maalmahan reer Jabuuti inay si aad ugu dhargayaan araggaaga dikhil waxaad ka tiri waan u xiisay shacbigayga maanta ayaan marageygii aan arkaynaa in baahi weyn ay ku qabaan mudane madaxweyne intaan u gelin caasho sugaal waxaa marka soo dhaweynta halkan lagu diyaariyey maanta kula kulantay gabadh ka tirsan deegaankan Khadra Cabdalle oo aad ku marti qaaday inaad tiraadid madasha kaalay oo ka hadal gabadha ayaan markaan jeclayn aan u yeedho Khadra Cabdalle Ismaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalka kashka iyo laabta iyo qalbiga ilaahay og yahay yaa ka jecel lahay jaarna waan nahay warshada caanaha dabadeeda duda yar baan galnaa waxaan ku dhahay haddii ilaahay ummadiisa uu wala simayo yaa fiicnayd waad garan sooma gaajana ma hayso biyo la'aanna ma hayso arradna ma hayo intaba anagu salaam baan kugu siin waxaan walaalkay ka cabanayay waa la wala hadlay oo waa la sheegay waa liisee cawradda maanta halkaan ka qaaday xaafad kale aan geeyo ismaaciilow waxay maraysaa waad gartay soo maaha ya ismaaciilow walaalka ilaahay cimrigaaga allaha dheeray caafimaadkan allaha ku siiyo cadawgaagana allaha jabiyo ismaaciil cumarow waxaan kuu sheegayaa noodhis liisee مرحبا انت بان كويدي سناي مرحبا شيف تريك كموسير انا وانت دبرك انو هيا waxaan ku rid ina ka haya seesta dabarka ma garan walaalkay salaanta adiga iska leh mid yaro kaliyan kugu darsanaya waxaan dhashay sekantiskii October baan dhashay dismaster andariye baan ku dhashay waad garatay Soomaa waxaan ku rid cimrigayga waanin shaqo dawladeed ma doono aqalka iska dhax fadhiya arsaaq ilaahay baa qaybiya ma tahay Ismaaciilo kaarkii baa iga halaabay Faransiiska war isiiyaan dhig laguma siinayaan war dismaster baan ku dhashay horta garo halku ku yaalan ina Umarow waxa dismaster halka la oranayay ii sheeg anu waxaan ku dhashay transfer chamber iner dimash baan dhashay ها dismaster andariye baan ku dhashay transfer chamber yaan ku dhashay ya October baan dhashay kowdii duhurnimo maanta Ismaaciilo kaarkayga wallahi kiyaa u tagaa wuxuu oo maxay qaadan weydo waad heli dees orod doono way diidan uu ku yaalay daacadka wixii laga bilaabo doon soo qaado sawirada geed walaha dhig Allah dheerayo cadawagana Allah jabiyo
intaadana manafacad allah ku gasho annagana allah noo gasho asa liisaagaba ku ooyay ina ka dhalay waa afar bay igu jirta waxa ku ilaahay ma la kaashadaa waxa maxaa ku iman maxaa maqli maxaa lagu sheegay ismaaciil halka bay xanuuntay liisaagu nindis أبشر أنا واقف سلامي ولكن معانو أبشر ني جبوتي بانهاي أقل كين جاك بورقوي قدومي وقراي تصويرها قال بيا والسوى البو إيه ولي وسويا ما تكري سدي ملا يا ما تكري ماي بيا كبوحة وحيدا هو الغندسي أوي عبد الكريم واسكفر رسالة عبد الكريم هذا الشهر ها يا طبعا قرنوي ماني لسه يا بلدي واسوينا اسماعيلو وين يا الرقصن ماسترد مدن مدحوينه adiga ayaa u bareeray in dadka reer Djibouti ka dhargaan dareenkooga waxaan jeclahay Caasho Xuseen sugaal بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد horta wax horeeya salaanta bisin baa ka horeeya bisinka quraanka soo liga nabiga inta ka bacdi madaxweynaha yaga iyo waftiga ballaaran ee la socda wasiiradayada xildhibaanadayada komisaradayada shaftirigayada salaan kashka iyo laabta ka soo gooda ismaaciil umar adiga salaan gaar oo soddonka jis ee quraanka iyo kugu salaamay aabo inta ka bacdi waxaan ahay hooyada beeralayda degmada ka hadlaysa siiba haddana haddii la duceeyo hooyada beeralayda cantareed baan ahay waxaa noogu daran annagu haddaan beeralay nahay biyo horta way noogu daran tahay ta labaad ceelasha biyaha cantar iyo nawaaxideeda boosta cantareed hoosteeda iyo nawaaxideeda biyo way socdaan yaa haddii alamaa duuda ilamaa nagaadh ilamaa shabeelley wixii beera jira ayaan ka hadlayaa hadalka adaa magacooga ku hadlay anaa magacooda ku hadlay inaad docdoc loo hadla maaha waa inaad dul ka hadlaan doonaya taa waxaa iigu xigta aabbow oo maanta halkaa aad aan uga xanuunsanayaa beeraley baan nahay dix baan ku naallaa cantar baan nahay yaa imanka annagu cantar baan nahay 3 goor buu dixdu soo noqotay isticmaalka dhukaan faqannaa 3 badaad baan qaaday wali jawaab ma hayno ta labaad waxaan nahay dumar hooyooyin oo beera lahaa oo maanta beeri ka xadhaadhaadeen mashruuc in loo furo oo mashaariic ay ku foorarsadaan amba 30 ha laga dhiga amba 40 ha laga dhiga waan jeclayn muruqa iyo maalka dhulku ku jiraa ciidayada inaan kala soo baxno sida maanta dawladaha kale ay xoolo noogu keenayaan annaguna aanu keenno u dhoofino oo dalka iyaga hore u mar gaarsiino ayaan doonaynaa yaa aabow waan ku jecelahay sida aad maanta noogu timid inaan 3 biloodba mar noogu timaadid baa noo qurux badan oo annagu ku hor joogsano oo ka bogodno marxaba waxaanse ku leeyahay aabow beeraha mashruuca hooyooyinka beeruhu ka xadhaadhaadeen inaan mashruuc la noogu furo waan jecelahay ta kale waxaan ku darsanayaa waa iskool waxaa la yidhi waa tan baa dhaanta in la isqarqariyana maaha nin nimcad haysta iyo nin dhibaato haysto waa inaan horta la is ogaado annaga ciyaalka iyagu mustaqbal ma hayaan waxaan nahay cantar iyo baaxuur gurcudka habeenkii way sii socdaan hangarariya abeesada duhurkiina qadaday soo ma tagaan heejadaha kale basas bay leeyihiin annagu baska ma arag tiriigaa dhuka loo wala joojiya annagu ma arag yaa waxaanse kaa doonaynaa dhagax waana noo dhigay oo iskool baa la dhisi baa layidhi weli dhagaxii noo yaallaa iskoolkiina ma hayn baabuurkiina ma hayn yaa taana waan kaa codsanay aabbow xeedha waxaa la yidhi gorofka ceelka ninka shubaa og yaa ninka baarka ka qaadaya ninkan wuu soo saaray kii kaa baarka ka qaaday adu ceelka waad shubaysaa laakiin raggii baarka kaa qaadaya waa yar dhaliilaynaa dee adaa noo maqan waxaad noogu maqan tahayna waa dadaalka aad maanta aan arka dadkaygiyaa tidhi waxaan kaa doonaynaa shaqadu way timiday alxamdulilah wax qabad fiican baad noo keentay boorkii xoolaad noo keentay kii saangadaad noo keentay kii gaaskaad noo keentay wax naga maqan ma jirto
xitaa waxaad noo keentay kooraankii baad noo soo wadaa xeedhaayna intii ag joogtay ee kuwa ka imanaya meel kalena waa walaalahay oo ma nacay oo inaan wala shaqayno weyn dhalintuna shaqada way naga yartay inaad taana noo foorarsado oo noo dayo waan jecelna madarasadna waxaa noo dhisay dibiteega iyaga way nagu yar tahay hana noo biiriyo dee dibiteega iyagoo jibriil cabdilaahi miigana wuu noo dhisay wayse nagu yar tahay ina noo biiriyaan doonayna yaa aniguna codsi gaaraan leh oo aniga igu kooban anu minta dawac baana dadka waan u shaqeeya laakiin codsi gaaraan leh codsigaay wuxuu yahay sanadkaan maanta ku jiro la 8 sannadood aniga gabar kale 2 warqadood baa nagaga jirtaa wasaaradda maaliyadda boodaan hor tagayni booda uu naga daboolay ka maanta noo joogo inuu noo saxeexo hooyo aynu inana u shaqaynin inanina u shaqaynin baana inuu warqada warwaan deelo waan tacabnay waxa noo dhaqaajiyay daraartu wasiirka ah Abdulqaadir Kaamil Maxamed yaa noo dhaq yaa taana inana noo dhaqaajiyaan doonto talabaad komisarka shaftriga oo inanka yagiya oo Cabdi Shakiim Nuur Yuusuf oo halku ku dhashay joogo oo noo keentay yaa oo noo siiyayna cid kale anagoona u tagay sagta dhax kawda haday tahay aqalkan ku garaac dawayna ka yagi haday dhibaato dhacday isaga nala jooga ku kasta oo shaftrigu na soo maray laakiin dhibaato ay ku dhacday artuu joogay dadkii oo dhan isaga ka soo horeeyo yimid inanka igi baa dhito isaga ka soo horeeyo yimid yaa waa inanka yagi arta noo joogo isagana uu nala shaqeeyo waan garab joogna laakiin Shakiim Nuur Yuusuf meel baan ku wala kornay waa walaalkay isaguna waa inanka yago noo shaqeeya yaa waana jecel waan ku jecelahay ina wadanka meeshii wax laga qabanayaba qofkeedii oo hebelow war maanta halkan arag na noo keen yaa hooyadu faari baan xaarayay waxaan xaarayay 9 sannadood ninkii hore ee dhaadhacay iyo Shakiib iyo mid iyo kol raashin yariisii wax kale looma qaban taana hooyada faariguna de gobolka yagu ma aha gobolada kale cartaad way nala qabeen hooyadaana inaad nagu dartid waan jecelahay oo de haday bariis yar noqotay hadii kalaba laakiin se waxaan kuugu lafaynayaa aabow oon haddana kugu celinayaa aabow ciyaalka iyo beeraha garawaaga adima ka tirina in baa ku nool annaga waan shidnaa wuxuu Jabuuti aanu u geeyna dad baa bariis ka day ma fadhina aabow yaa waxaan doonaynaa ninka sidaa yiraahay ma fiicino ninka wixiisa ku foorarsada ee weelkiisa kala soo baxa iyaan doonaynaa halkaana waxa ii fadhida rag aabayaala oo dawladdu lacagtii carabta ay ka haysato oo 3 raga oo maanta halka jooga oo 3 bilood bilaa raashin reerahood yihiin oo ay bilaa bil yihiin yaa ka haysta carabta la yiraahdo hog ninkaana way caayeen Shakiim Nuur Yuusufna way caayeen carabtu meel walba uu maray raqabadu u dhigtay wax walba uu ku sameeyay waxa leeyahay waxay ku hayaan ma jiro waa 3 oday oo gabowday oo meesha dharaartii la bilaabay lagu bilaabay yaa laakiin iyar baan ka hadlayaa beertii biirmeetarka cantareed ee mashruuca ee alxaaji xasan guleed abtidoon allah jannadii ka waraabiyo uu sameeyay harraad bay geedu ku engegeen harraad iyay geedu ku engegeen beertaana inaad biyaha ceel foraasha loo qodo biyaha la siiyo war inaguna waan shaqaysanaaye wax ku soo darsada ceelna waa nii qodi adigu un weel ha sidanine inana yiraahdo nagu haboon yaa inana yiraahdo iyaa nagu haboon biyaha safaysta yaa saracaan ku beeray magaalada Jabuuti oo dhanba naga iibsato ongeyna haba saahato warda biyaha yar lacag baan nagu hayaa lacagta inana naga naaqusayada lacag ma bixinaysid may waa bixinay hana naga naaquso alxamdulillah rabbil alamin wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh mudana madaxweyne waan ku salaam dadku waxa uu ugu fiican yahay golka uu leeyahay dan guud baan ka hadlaynaa dad wixii cabasho qabayna si sax ah in looga jawaabo iyaan doonaynaa wixii dawladda ku saabsan ee hawsheedu tahay inay soo dhaweyso gacantiina idinkaa leh wax soo saarkiina idinkaa leh annagu waxaan leenahay inaan soo dhaweyno biyihii inaan dhulkii inii nadiifino iyaan leeyahay waxay aad soo saartaanna kolkaad ka faa'iidaysataan dadka kalena uu
waxbaa ka soo gaadhaya dowladduna kolka dambe waxaynu odhan doontaa kan cashuur waad bixin doontiin dee marka waa kolkaad ururisaan weeye kolkaad lacagta ururisaan weeye perimeterkii xaajiyaddii allah yarxame caasha boqorey meesha sidee ugu kharrimeen anigu maanta igu horeysa sidee biyo loogu waayey intan buuba leekaaday forage bay leeyihiin perimeter paysan datar oo gooniya 40 meterkii par air buu sameeyaa wuu gaboobay ma odhan karayo waayo waxaa la yidhaha deperissement de forage baa la yidhaha wuu gaboobay laakiin waxa weeye deebigii baa yaraaday camuud baa ka buuxsantay waxaan idhi qoladii onayaadkay ku shuqul lahayd toddobaadkan kaalayo sida kuwiina hadduu safaysiin u safeeya waxay tidhi inantu igu biiriya forage labaad waan ugu biirinanaa mashruucuu ku jiraa bisha mee bilaabmaya forage labaadna waa loogu hagaag u dhegayso laakiin beeralayda duuda damerjoog catar bisha mee buu bilaabmayaa macal guudaagud sidii casaamahan u samaynoo kale wuu yar raagay laakiin imikuu bilaabmayaa microbarage baa ku jira biyaha kaa qabanaya daadka oo macaanaynaya waxaasoo dhan way ku jiraana in yar samra waad mahadsantihin la'aantiin dhulku waa si kaluu noqon lahaa runta haddaan sheego wallahi runta haddaan sheego giniyo siciid shire ayaa madaxweyne markan ku xigi doonta oo iyaduna halkan joogta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. magacaygaan ku bilaabayo waa Giniya Siciid Shire. waxaan ka socdaa degmada Duuda. waxaan nahay hooyooyinka beeralayda iyo caafimaadka iyo ololaha u diyaarsan ee u faradhuudhuuban shicibka iyo dawladda iyo wafdiga noo yimid iyo madaxweynahana waan salaamayaa mudana madaxweyne adiga salaan gaar ah oo 30 jis ee quraanka ay ku dheehan tahay baan kugu salaamayaa aad baa lagu wala jecel yahay dadka aad u timidayna waa dad go iyo gudhata isku ah waa dad isku duuban waa dad gacmaha is haysta waxa la yiri walaalaysayay weyna geelu kacaan dadkani dad fiican weeye hogaankana adiga hogaan awrka socda iyo horeeya iyo hogaankiisa leeyahay hogaanka wanaagsaneed aabow noo hayso ilaahay baan ku mahadinaynaa ilaahay meesha aad martana halkay nabiyadu mareen ha ka dhigo cadowgaagana allaha jabiyo maalin iyo dal kale ka hadasha waxa la yiri ninkan waa la waaga barigiisa u gartaay waan qiirooday in yaro hadalaan iri ilaahay baan bariyay inaan hortaada joogsado maantaan sa ark waxaan iri aragtidaadaan jeclaayo oo u jeelana aadmigoo idin la oon baa lagu qabaa ilaahay samadii iyo dhulkaba nabad ha kaaga dhigo oo samadii iyo aradku way ku ducaynayaan oo afrika idin la aabba lagaaga dhigi maalintii maantay noqoto waan ku hor joogsaday aabbo hadalka waxa la yiri ninka badiyay ma dhamay ninka yareeyayna kama u tagi laakiin annaga haday wasiirta haday maamul goboleed tahay haday kamasteer tahay mid kaan u tagnay ilbaabku maanta annaga uu noo furan yahay waxa soo dhan adaa ka mudadhaliyay waxa soo dhan adiga ka mudadhaliyay ilaahayna waan ku mahadinaynaa laakiin de baahidu ma dhamaat waxa jira dhaqtar kastay tahay in yaro baahiya ku jirta dhaqtarka duudaad iyo ilaan nagaad malihin ambalaas xumada nagta dhaxa kolkaan iskicinaan qab nidhaahnaan halkii tagno xabadkan ina aabba kama helo dadka u faro dhuudhuumanna waana waxaa ka sii daran cilaaban ugu tagna maxaa dhacay kolkaan nidhina dee aqalba ma haystuu yidhi maxaa mal iniigu fadhaysani qofka xanuunsan halkaa kolkaan ka qaadna dhakhtarka weyn baan geynaa ilaahay baa mahadda iskale inta aan tagayna ee nabadda ku soconnaba waa ilaahay mahaddiis dhul badan oo la iska marayo oo waxaad noo samaysay kaar caymisa waa ilaahay mahaddiis ilbaa furan baan iska galawana na soo dhaweeyaa fadhigaana nooga sara kacaa taana waa ilaahay mahaddiis mid kalaa jirta fariin baan kugu sidaa waa inaad waa hooyada badda keligeed badda ma leh haweenku meel kastuu joogo iyo halkaa leh 6 cishay shaqaynayaan mahna maalinta keliya way ku wala neef goostaan dalxiis bay ka dhigtaan dad baadiya tagay bay iska dhigaan ciyaalku ku baraarsan yahay annagu waan ku baraarsanna itaalka yagi waxba ma hakrano daad kolku yimaado naga qaada
baddu way naga qaadaa waxaan doonaynaa halkaa weliba qardabada kale baa nooga sii dheere halkan la odhanayo halkaa inaad adu noo xalaalay siday xalaal noo noqoto oo wax dumar ay ahaato dari ilaahayna adu aad ugu horraysid ood nagu taageertood wax nala qabatid marxaba iyaan aabbaw doonayna abshir mid kalena aabba way jirtaa mid kalena aabba way jirtaa wuxuu yidhi ninkii dadku dhimaya dhoolay waxba aniga ii dheer ani waxbaa ii dheer hay-ad yaa tidhi waxbaan kula qaban beeraha dadka itaalka xun leh halkaa baan ka baxnoo ninba meel baan joogsanayoo dee madarqa waxba u noo jabin waay maanta aragtidaada anu ilaahay baan ku mahadinayaa aabba bahashii dhulka ii daloolinaysa taana waan kaa doonayaa aabba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم. أنا وحان هاي إستنانتي علي هنا هالكا فرددا ويدا ما بدينا يو وحالي هذا الكا بقولت على جد جاي بديس حبكم ما دمنا سو واحد قرأت معها وحان كل أفر حالان كا هالكا ما تقال سوق ووجهك لا شوقه علي هنا أفر تحول أفر تاس وحاوها الرأي بابورك عيالك بابورك عيالك هالك على هنا لقتك جاي مادي هالك أبي مادي عيالك أسي وتوب وحرات وورابة أنت أبوك بلتم بيويه ترى ده وايمسا وكو وحيجو حاجة بيه أنا برنامج كلا بدن ما قرنا يو بيه بيجو حاجة الرات بهالك نقول له والله با محن يجو حاجة وحلا سبيه سكول وحلا سبيه تخسر بيه ماله دبنا ماله ما يمغى شيء صد حالة ما تهي وحيجو حاجة شومر waxay xulufooyinka ay leeyihiin ay wasaaraddu leedahay annagu reer cuna haddaan nahay aan waxba ku lahayn ismaaciil cumar xulufadiisa ciideenna calankeenna hajir rimaado mawtaadkeenna wixii xaqa tegey naxariis janna allaha siiyo wixii joogana ilaahay isku anfaajiyo انت يسرع الله نقدقو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته magaaladii naayire cali cuna waxaan ku ognahay ciidanka qalabka sida kol haddii aad isagiiga uu soo garab degay wixii baahi aad leedihiin oo dhan waxaan idhi iyaga leh xagga markaan u jeesanna waxaan idhahnaa macali cuna ciidamada yaa hadday biyo doonayaanna siinaya hadday kooraan doonayaanna siinaya haddii ay iskuul baabuur doonayaanna siinaya intaba iyagan nii dhibni annagu oo nigu ognahay isniino caynaan rooble ayaa marka yeedhi doonaa isniino caynaan rooble assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta waan ni salaamayaa madaxweynaheennii shicibka intaa la eg waan salaamayaa allah ysallimak madaxweynaheennana aad baan u salaamayaa salaan kashka iyo laabta ka soo go'day iyaan ku salaamayaa waxaan ahay anigu shabeelley duudada yara shabeelley hooyadeedii baan ahay waxaan codanayaa shoomeernimo iyaa noogu xun yaa xero yar yaa noo dhow oo eermeegu min shaqaabaha eermeega uu leeyahay iyaa noogu dhow shaqadaa yar 10 qof iyaa ka shaqaysa inamadayadii 2 dhal 3 dhal iyaan ku haynaa dee wax ilaahay iyo madaxweynaha ayaan sugaynaa waxa kaleeto oon ku darsanayaa shiinaha iyaan ag maray dabkiisa waana noogu ballan qaaday waxaa la yidhi waan nii gelinaynaa weli ma hayno waxa kaleeto oon ku darsanayaa dikadda waxay noo soo gaadhay halkaa shiinaha halkaa maraykanka agtiisa ayay noo soo gaadhay dikadda madow rab dikaddayada intaa kaleetay waa raf weeyaan maanta halkan waxaan ku imiday 200 oo faran iyaan ku imiday aniguna Jabuuti markaan joogo 4000 oo faran iyaan ku tagaa
يا أفر بقول بيكابك كرايستو بين ما شاقيا إلهي بان نقو راشين يربان قادنا أفر كون وحكير نقو ما قادو هاي ماي وحا إلهي أوغي هاي وين وحا شاقيا أناقا ماها وحا كرايتي أنكو درسانا يا أنيقا وحيرو أي هايستا أو علوشا أنكو هايستا أيان كو درسانا يا أبا مدحويني يا ما أنت أنيقا الله كل ماي فرش يا إيبحي وحانا هاي هل naagtii ku guursatay ee albaa'iida ku guursatay ee madaxweynaha xasan guuleed ilaha u naxariista sarqadiisii uu qabtay baan ahay ya afar inamood iyaan leeyahay afartii shoomeer bayga yihiin nin kaliya hatay oo ku curtay iyo askarta ii qaaday dameera iyo layga soo celiyay uu iga bukaa mid walba waan ula tagay tol iyo tag midna malihi waxba waan garan waay wixii qaada ya guri ma haysto bildaqoobaan tagay waan ka noqday waxaan fadhiyaa iminka shabeelley oo hooyada shabeelley baan ka tirsanahay deeqdaa yaraanay calooshayda ku jirtaa aabbo waxaan ku weydiisanayaa hooy ma haysto yaa agoon waan haystaa aabbo hooy baan ku weydiisanayaa maanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wiilka kaa xanuunsanaya ee caskarta ah warkiisa yaan doonaynaa horta dumeeraa laga soo celiyey bay tiri waa xanuunsan yahay bay tiri soo maaha saddexda kalena ma shaqeeyaan bay tiri waa in la shaqo geeyo dee saddexdaa kale ninba wixii uu karayo adigu haddii aad karayso haddii aad adigu karayso haddii uu cabdulkariim karayo agoonta tiiraanyada ka gooya gabadha tiiraanyada ka gooya gabadha guriga waxaa dhisaya dibiteega guriga adigaa dhisaya shabeelleydeyda baad uga dhisaysa jaajuurkanaa keenay madiine suge khayre ayaan u yeedhayaa markan madiine suge khayre mudana madaxweynaha iyaga salaan kashka iyo laabta ka socda salaanta islaamka ee la isku salaamay ilaahayna siiyay baan nagu salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmat anu waxaan ahay madiine suge khayre baa la yidhaahaa waxaan ahay reer dado haweenka dameer jooga degan baan ahay hooyooyinkaa baan ka mid ahay mudana madaxweyne waxa weeyaan dee baahi ilaahay baa dhammeeye waxaan ku weydiinayaa oon kuu sheegayaa waxaa jira haween fara badan oo waddanka nawaaxiidaha oo dhan dumarka jooga badidooda waa bilaa waraaqo maxay ahaydey waana loo baahan yahay oo carruuray leeyihiin oo reero waaweyn bay leeyihiin oo islaanta ilmihii guru dambaysa iminka dhashay ee ubadkeedu 12 yihiin maxay ahaydey aanan warqad lahayn kaar lahayn waxay ku dhaqaaqday waxay ku dhooftay midna lahayn yaa jirta mid iyo labana midna ma ahina ilaa 300 oo dumar weeyaan waa loo baahan yahay oo dawladda u baahan oo annaga u baahan oo ubadka u baahan oo dalka u baahan kuwa waxaan u baahanahay in aad waraaqaha ugu dhawaaqdid oo siisid waxa kale oo jirta halkan baan nooga dhistay seese meeshani taageeraha aqalada la siiyay ee boqolka guri ah waxa weeyaan waxa yaala dad buka jira dad itaal xun baa jiro de kolka horeba waxa loo siiyay itaal xumada guryaha dadka loo siiyay dadkaasi in bugta in macaan le in jajaban
intaba way leeyihiin marka mala kooraan tag kooraan male mala kooraan sooleer male kooraan kale uma iman marka halkaana dhibaatadaa baa jirta dhakhtarka waxaa jira dhakhtarka waxaa jira caafimaadka xagga caafimaadka waxaa jira dad buka oo dawadii dhakhtarrada tani Jabuuti la yidhi annagu nima daweyn karayno dabadaha u dhaafade Masar iyo dhukaa taga oo maxay ahaydee annagu meel kaste la soo mariyay waraaqahooda aan xanuunkoodii la daweyn karaynin dad calooshana ay xanuunku u galay kuwa indhahala wax badan baa jiro oo aan Jabuuti ay dhakhtarradii Jabuuti lagala qoostayba ayaa jira imsa qof dhowr iyo 10 qof way gaarayaan marka waxa weeyaan dee ilaahay baa deeqaha baxshee sidii aad kuwaana ugu dadaali karaysid waa la joogaaye oo dadkeenni way joogaane taana waan kuu sheegayaa mudane madaxweyne waxaa kaloo aan kuu sheegayaa mudane madaxweyne waxaa jira dee horumarka kama hor imanayne waxaa jira beeraan ku lahayn halkaa xeebta beerihii boorkii baa ku dhacay waa la xaadhay waa dee la degay oo waa la dhisay feeg aan u sheegno waxaan ka nidhi war beeraha yagii waa kaasoo dee maxay ahayd shaqadii madaxweynaha ku dhacday ma garan inaa la naga qusiyo dee la yidhaaha dee samiriskiiska yar iska qaato dee salaama waka inaa la naga oo qurux badnayd mudane madaxweyne hadalkaagu waa murtimeedha dalkeena nabad iyo nimcad ayaan ugu ducaynay aamin adigana caafimaad baan kugu ducaynay assalaamu calaykum madaxweyne soo murtiye kulanka kadib sheekhaan u ducayn doona insha allah waan dhegaysanay murti meedhan baan la kala kulannay dhibaatooyin wixii jira waan aragnay ilaahay mahadii waan saxi karnaa wixii qalad aad sheegteen oo dhan waan sixi karnaa ilaahay baan la kaashanaynaa dowladdeennaan la kaashanaynaa dadka waxaa i dhegaysanayay ee mas-uuliyiinta ahi halkan bay joogaan biyo hadday tahay dawo hadday tahay shaqo hadday tahay waraaqo hadday tahay waxaan hilmaamay hadduu jiro ama aan iloobay hadduu jiro ama idhaafay hadduu jiro ra-iisul wasaaruhu wuu soo wada qoray ninka boorka ka shaqeeya ee meesha ka madaxina hantidiinni nigaga ba'day meeshaasi inaad dee si qoran aada ugu sheegtaan inta qofeeda haydeen inta beerooday jirtay inta aqalay jirtay ee laynigala wareegay isagoonan weli wax laynii dhiibin iyagaa le dee arrinkaas iminkana waanu xilsaaraynaa uu joogaa guddoomiyihiina uu joogaa isagaa samaynaya waxaas dhallinta arrinteeda iyadana meedaankaygaas insha allahu tacaala waan dhisaynaa futbool maahina waxa kalena waan ku daraynaa haddii aan la yidhaahdo marka sheekha ayaan weydiisanaynaa inuu noo duceeyo والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إله النجا قبل النجا أجيب. خير كان مدحوين أسوك علي إلهي سبحانه وتعالى كهلا قبته. إلهي كل جرجاره. إلهي سبحانه وتعالى أول بساق عمها هيه. إلهي سبحانه وتعالى كتاجره. وحفي عنه خير نو قبته أنت قد منا هنور ما يستره. إلا النور ما يستر يون نجا سعنين. إلهي سبحانه وتعالى لقبته ويدي سنينا. باهينا إلهي بعد ما إلهي سبحانه وتعالى باهينا هذا ما يو إنكم ولا لي الله كعبسون هل ما ضل لك عبسونه إلهي سبحانه وتعالى إستغنا حب الله قبل إنكم ونقر جاري سبحانه وتعالى إلهي عمرك يستهدى ريو عفماتك الله وبركيه عمرك الله وبركيه عقلك الله وبركيه لما أنت الله نقبل نجاجيه الفاتحة